بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan daga dhageysanaysa waa ducaale media bartaan YouTube-ka ku leenahay. fadlan kulli xaasidii meesidii subscribe ka hanaga ilaawin. Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ka hadlayay munaasabadii lagu dooranayay duqa iyo ku-xigeenkiisa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in ay dawladda Soomaaliland ay qoraallo u kala dirtay caalamka sida jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa midowga Afrika jaamacadda Carabta isagoo ka hadlayana waxa uu yiri sida tan waxaan u maleynayaa 5 casho 6 casho horteed ayay soo saareen warbixintoodii hordhaca qayb dawladihii Yurub midowga Yurub iyo kuwa aan midowga Yurub ku jirinba 12 dawladood baa saxaxay dawladda Ingiriiska loo xil saaray inay warka baahiso dawladaha Yurub oo dhamay way saxaxeen dawladda waxay ka soo saareen warbixin aad u ballaaran oo aad u dhiirigelin dadka Soomaaliland oo ah oo shicibka Soomaaliland dawladda Soomaaliland ciidamada amniga Soomaaliland komishanka doorashooyinka waxba ay ku wada amaanayaan inta kale ka war hayno gobolkan aynu ku dhaqanahay dawladaha ka midka ah geeskan Afrika ku wada jirno oo qaarkood ay dhawaanahan la filayay inay doorashadoodii noqdaan shuruudii lagu xidhay waxaan qaarkood lagu yiri dalka yar ee Soomaaliland la yiraahdo cidina aqoonsanayn doorashadii ka dhacday oo kala la idinka rabaa in ay idinku sameeyaan waxaan ugu kalifayay in inta background-kooda dib ugu noqdo doorashada dadkii ka soo baxay baa tii doorashadii waxaynu baahanay waxa ugu badanay imika sanadka iibinayna dawladda imika qoraal ay wada qortay in alaaliyay inta hay'ad caalami ah jirta jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa jaamacadda Carabta midowga Afrika kuwan goboleedka waxa dhan qoraal baa loo qoray oo qoraalkaasina waxa weeye ummadda Soomaaliland jawaab ay idinka sugaysaa calashan doorashadii dhacday